السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wuxuu ahaa sheekh caalim ah iyo macallin quraan iyo qof u dagaalama xaqa dadkiisa iyo diintiisa. waana qof laga yaaba inaadan wax badan ka ogeyn taariikhdiisa iyo xogtiisa, balse waa qof sharaf iyo maamuus ku dhex lahaa caalamka islaamka oona noolaa qarnigii tegey. The sentence on you, Omar Mukhtar, is death by hanging in public. From God we come, and unto God we shall return. soo dhammaystiran waa Umar al-Mukhtar Maxamed bin Farxaad al-Manifi. wuxuu dhashay 1858 wuxuuna ku dhashay magaalada Zanzur ee Liibiya. Umar al-Mukhtar wuxuu xafiday Qur'aan Kariimka asagoo daayar. wuxuu ahaa macallin dadka quraanka bara iyo axaadiista nebiga sallallahu alayhi wasallam. 1911 markii Talyaanigu ku soo duulay Liibiya, Umar wuxuu jiray 53 sano. markaas ayay noloshiisa isbedeshay si uu u difaaco dadkiisa iyo diintiisa. isla sanadkaas ayaa waxa uu abaabulay oo ku dhawaad 20 sano oo hogaaminaya dhaqdhaqaaqyo iska caabinta Liibiya ee ka soo horjeeda gumaysigii Talyaaniga. Umar al-Mukhtar waxa lagu naanaystaa libaaxa Saharaha. Umar al-Mukhtar waxa kaloo lagu tiriyaa inuu yahay geesiga qaranka Liibiya iyo guud ahaanba dunida Islaamka. Umar iyo kooxdiisa yareed uu abaabulay waxay si khibradaysan u weerareen bannaanka hore ee ciidamada gaadiidka Talyaaniga. arrintaas waxay naxdin iyo layaab ku noqotay boqortooyadii Talyaaniga. Umar al-Mukhtar dabeecadiisa iyo go'aan adeegiisa ayaa xitaa cadowgiisa saameyn ku yeeshay. kadib 20 sano dagaal socday oo gilgilay laabaha gumaysiga ayaa Umar al-Mukhtar gacanta lagu soo dhigay isagoo da'diisa ay jirtay 73 sano. waxaana loo soo bandhigay heshiisyo badan iyo laaluush, laakiin Umar had iyo jeer wuxuu ahaa nin xaqa u dirira. taasaana sababtay inuusan heshiis dhahmarin. 16 bishii 9 1931 ayuu Umar al-Mukhtar shahiiday. hadalkii ugu dambeeyay wuxuu ahaa aayadaha Qur'aanka Kariimka ee suuratul Fajr, aayadaha 27 ilaa aayadda 30. ugu dambeyntii, haddii aad hadafkaaga iyo ujeedkaaga uu yahay si aad u koryeeli lahayd qowlka Alle subxaanahu wa tacaala, adigana adduun iyo aakhiro sharaf iyo karaame ayuu Alle subxaanahu wa tacaala ku yeelayaa.